الله نحرسته وحساك subaxnimadii dil toogasho lagu dilay taliyihii ciidanka birmadka ee gobolka saaxil marxuun aadan guuleed daahir oo loo yaqaanay talaabo waxaana dilka taliyahan geystay mid kamid ah ciidamada uu xukumayay oo ku toogtay fagaaraha hore ee saldhigga dhexe ee magaalada Berbera labana garanayo ilaa hadda waxa sababay dilkaasi balse markii dilkaasi dhacay ayaa waxa uu isla markiiba gacan ku dhiiglihii dilkaasi geystay oo lagu magacaabo Cabdirasaaq Saleebaan Khayre oo loo yaqaanay garmale uu isla markiiba isu dhiibay ciidamadii booliska ee goobtaasi ku sugnaa iyadoona isla markiiba xabsiga loo taxaabay kadib markii dilkaasi dhacay ayaa waxa magaalada Berbera ka bilaabmay mudaharaado ay dhigayaan shacabweynaha reer Berbera oo laga soo horjeedo dilkaasi loo geystay taliyahaasi waxaana shacabweynaha reer Berbera xidheen goobo badan oo kamid ah jidadka waaweyn ee magaalada Berbera iyadoo ay ku xidheen dhagxaan waaweyn taayirana ay ku shideen kadib markii intaasi dhacday ayaa waxa warbaahinta uga warbixiyay dilka dhacay gudoomiyaha gobolka saaxil Fahmi Cabdi Bidaar oo isagu sheegay in gacan ku dhiiglihii dilka geystay gacanta lagu hayo isla markaana sharciga la horgeyn doono waxaanu gudoomiyaha gobolka saaxil ugu baaqay shacabweynaha reer Berbera ee mudaharaadada dhigaya inay amniga ilaaliyaan kana dhul sugaan sharciga oo la marin doono gacan ku dhiiglahan kala shilba ka dhacay mid taliya ciidana lagu adiguna dheeladii raaxada loo joogay joogta magaalada mudaharaad baa ka soo aad ka waraysa أصلا ما سنتها لكن سؤال شيء يبقى بيسا قرح بنا شغون بالمجوب تلاقي شو مجوب هو أنا أرجع يسوي جود يأكل شو يا ليش يا رتا يا رتا قاصو مرات وأوجه حي واحد صعب هذا هو بدون حين كيمي وحويان نذكر عن لاحق ونقول هو باهنية أمر إلهي بعد عيد نكي عنتها نكوهنا شيء كان جود بني طريقة إلى هذا الله مرنا إياه وحنك دمان ودرا يا هيك بالبرود قال هن وحن لاح نبغي نقول عليه استجية هذه الله إله كنا طريقي ولهاهم بالمرين ككلنا اللهم نحرستان أروى وصاير gudoomiye iyadoo tiila ay jirto deenkaas uu dhintay hadana sababta ma nooga sheegi kartaa war makaash ilaa hadda intii riboodka lagu siiyay waxa ay waxa arintu ku dhacday waxa jooga hoggaan baa jooga magaalada hoggaanka iyo waxa israacay marxuumka halkaas saldhigga dabadiisa oo dhur ah ayuu soo tusiyay baawlka soo qaaday aan ku yiri hoggaanku markii baawlka soo qaaday uu yiri ninkan askariga baawlku iska foolay markaasuu yiri kadib hoggaanka raacaya marka wuxuu ku yiri ma waa ku raacaya hoggaanka buu socdaa hadda hoggaanka mar dib u tagaysaa imka iska dib buu ku yiri maya wadi keenaysaa maya sidaadii uu saldhig uga soo dhaqaaqay ayuu mataqaana markaa shan xabbo وكل فتاة سأسأل رسول الله محمد عبد الله سوفرستي سومالي channel مقالة بربراء